السلام عليكم وإذن سلامي صاحبada qiimaha leh runaantii maanta cashar idinma wado runaantii casharada midkaan ayaa ka xiiso badan soo dhawaada saaxiibayaal maanta wax yar waxaan rabaa inaan wax idinka fahansiiyo shaxda nolosha ama sida aan nolosheena meel sare ku gaarsiin lahayn aniga iyo idinkaba marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada inta aadan fiidiyowga gudaha u gelin waxaan ka codsanayaa inaad saddexdan shay ii samayso waxaa jira xirfada si physical loogu shaqeysan karo iyo kuwa daahsoon oo aad si badan ayaa xirfada graphic design aad u yasa ama aad u yareysta balse haddeer la joogo ama sanadkan 2024 iyo sanadkan dhamaanaya 2023 runaantii graphic design waa xirfada ugu sareysa ee laga shaqeysta baraha bulshada runaantii graphic design-ka ma ahan wax fudud runaantii dhalinyaro fara badan ayaa kaga shaqeysta baraha bulshada dhalinyaradaas oo design u sameeya dad wadamadaas kala jooga ama sidoo kale boorar u sameeya boorar ganacsiga boorarka ganacsiga runaantii graphic design marka lagu leeyahay maanta marka aad fiiriso dhulkeena Soomaaliya sida maqaayadaha iskuulaadka sida baalbiyeeriyada meel walba marka fiiriso waxa ku xiran boorkaas oo cadeynaya ama ku tusinaya hawsha uu qabanayo qofkaasi runaantii boorarkaas ayaa design la yiraahdaa kuwaasi ayaa la design gareeyaa marka designadaasi la sameeyo ujeedid ala boorkii ugu yaraan waxa qofka uu ku qaadanaya waa $10 oo kale qiimaha halaas oo kale ayaa ka asagalaya halkii boor oo aad design gareyso adiga oo aan daabaceynin design-ka kaliya nashqadaasi oo aad diyaarinayso marka aad ayuu muhiim u yahay dad fara badan waa ay yareystaan balse waxaan jeclahay in aad fahamtay macnaha ku jirta halkaasi oo aadna xirfadan ku dadaasho graphic design-ka maxaa yeelay aad ayuu u muhiimsan yahay maanta waxyaabo fara badan ayaa lagu qabsanayaa dad fara badan ayaa ciyaalkooda ka biisha ama noloshooda wax ugu qabta marka waxaa muhiim ah in aad barato graphic design-ka ayaan kula talin lahaa kaliya xitaa boorarka laguma design gareeyo looga design ayaa jirto haddii aad aragtay meel walba xarun oo waxbarasho noqoto ama xarumo kale oo wax lagu qabanayo bulsho loogu adeegayo sidaad ogtahay waxay leedahay loogadaasi ama meeshaasi calaamad lagu garto ku sawiran marka kuwaasi ayaad sameyn kartaa intoodaba lacag ayaa ka saagali karto marka inaad fahamtay ayaan rajeynayaa xirfadda labaad ama waxay noqonaysaa xirfadeena labaad video editing horta runaantii video editing waa mid aad iyo aad u muhiimsan waa inaad barataa asigana inaad video edit garey karto maxaa yeelay waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya jooga oo video edit gareeya dad kale oo wadamadaasi jira oo videoyaalkooda inay edit gareeyaan kadibna u soo dhiga baraha bulshada sida YouTube Facebook iyo meelahaas oo kale marka dhalinyaradaasi waxay ku shaqeystaan waa social media bishiina lacag ayaa ka soo gala ama dhaqaale ay ku qaataan kaliya way manage gareynayaan YouTube gaas qofka uu sameeysan ay u maamulayaan videoga ay soo jarjarayaan way soo edit gareynayaan kadibna way soo upload gareynayaan sidaas ay bil waliba waxa ay ku qaataan lacag marka waa muhiim aydan inaad wax ka barato runaantii maanta dunidana waxaad wax ka baran kartaa laptopkaaga telefoonkaaga smartphone hadaad haysato telefoonka shaashada ayaan ula jeedaa hadaad haysato wax waliba aad baran kartaa kaliya waxay ka baahan tahay inaad YouTube gasho oo aad searching gareyso ama aad qorto oo raadiso ama inaad Google ka raadiso kaliya ayay ka baahan tahay wax waliba si easy ayaad ku baran kartaa xirfado kale oo fara badan ayaa jira runaantii oo aad maanta wax badan kaga qabsan karto noloshaada waxaan jeclaystay inaan videogeena maanta halkan ku soo koobo kaliya waxaan rabay inaan wax ku fahansiiyo si aad noloshaada xirfad u yeelato oo aad wax ugu qabsato sidoo kale si aan anigaba u jeclahay inaan nolosheedu wax u qabto oo aan u hormariyo ayaan waxaan jeclahay inaan tan walaalkayga Soomaaliyeed wax ugu sheego ama aan u sheego qaabka uu noloshiisa wax ugu qaban karo waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa mar kale videoga inaad noo like gareysaan channelkan inoo subscribe gareysaan mahadsanidin wixii comment ahna qaybta commentiga inoo reeba waa idinkaga soo jawaabi doonaa insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal